marka maamo og iyadii og inay nin ka soo tegay reer ka soo tegay oo ilmo ka soo tegay oo caruur ka soo tegay oo reer dhisan ka soo tegay mid soo xareysanayso kama liidato kan waabataan idhaahdaan way ka liidataayo dumarku markaad si u eegtid iyaga istoogta xabad iyaga soo xabaysteen bay isla dhacaan sababtoo ah mid jaarkeeda ah oo ilaahay u hagaajiyay inta isleedahay ka soo qaado sababtoo anigu ma noqon karo iyada waxaa laga yaabaa gabadhaas inay waxyaalo badan kaga fiicnay ay istiraahdo adigana wuu ku fiicnaan karo dumarka meelaha qaar waan ku dhaleeceeyaa dumarka aad ayay isu liidaan weliba intay kii dhale carruurta saaraan ya halkaas dumarka anu ku dhaleeceeyaa ay weliba ku kala ku fangareeyaan lacagta waxaan idhi halkaas maasan ka tiriyo aan leeyahay kooban oo adiga inta hadda wada fadhinay ah waxaan idhi dumarkan xubnaha qaawan ee marada xaydxaytay xaflad joogta dumarkaa noqdee dhaqankii xayndaabay xaajigoodii wada cayriye xulaya suuqooda oon xog u haynin ubadkay dhaleen xeeqsan gebigoodba ingiriis miyaa xaalkan dhigay khatroy xaaji kala baadi arrintan ma ingiriis baa ka dambeeyey dumarkii waa halaabeene warka miiska noo saara waxbaad difaacine dhabta ka hadal waa dhammaaday weeye khadarow horta gabdhahanaa tiri xubnahooda qaawan iyo ama suuqa ordaya iyo ma og tahay inuu nin yahay ka gabadha dibadda u saaray ma og tahay ka u heesaya ee u calanwalaynaya ee la waryaa heblaayoy ta ugu fiican baa tahay ta ugu quruxda badan baa tahay isagoo dana gaara ka wata oon haba yaraatee rabin inuu yacni gabadha future ka yeesho ama mustaqbal odhanaya you are the best ayaguna dumarku waa dad iska yara intooda badan qalbi xabxabaho intiibay run moodayaan waxa gabdhaha suuqa marinaya ee suuqa ordaya waa rag baan ku leeyahay kaana rag uunbaa ka dambaysa hadda jooskeeda kadib maadaama la yidhi waddankan adaa ugu horeeya adaa mataqaanaa qorbihii iska leh de ninkii inuu sasiro ma ahayna waxaa laba in ay wax sasirato halkaas talakaga idinkaga maqan maya raggii kii guriga joogay gabadhii amar baa dhici karo wiilkani gabadhan say shalay isu guursadeen ayay ku kala tegi karaan oo inagu ma odhan karno maxay ku kala tageen horta iyo waayay u kala tageen midna odhan karmayno balse ka raba inuu halleeyo ee bannaanka xaaraanta la wareegaya anigu hadda ka hor waxaan idhi ragga soomaaliyeed waxay yidhaahdeen gabadhi ama guri ha kaaga jirto ama god ama gunti ragaas soomaad garan ama guri ama god maxay labadaa ugu qoodeeyeen sababtay ugu qoodeeyeen waa dhibaato kale iyo wax kale oo ceeb ah ayay keeni doonaan gabadha xaaraanta ay samayso waa mid la arkayo oo kasoo baxaysa balse ka ninka mid la arkayo maaha marka taa waxaan odhan karnaa raggu xaaraan diid maahee xaaraanta la arkayo diidayaan maya xaaraanta la arkayo gabadhan berri markay wax samayso uur baa kusoo baxaya sooma xaaraantii aabihii walaalkiiba way dhaawacaysaa marka kan ninihii xaaraanta samaynaya odhan maayaan war maxaad gabadha waxa dhibaateeyey waa ninkee nimanka ha la qabto oo dunida laga fadhiisiyo gabdhihii bay god iyo guri u qoodeeyeen taasna waxaa ku cad in ragga soomaaliyeed ay xaaraanta la arkayo diidan yihiin xaaraanta qarsoon aysan diidanin okay su-aasha aan ku weydiiyey haddayna dib ugu soo laabano maxaad uga jawaabaysaa dumarka ku badan qurbaha oo single motherka maxaad uga jawaabaysaa maxaad ku difaacaysaa jawaabta saxda ah anigu waxaan odhan karaa dumarka ma odhan karo maxaad u noqoteen single mother oo taa rabbiba leh shaqadeeda oo furiinkan iyo guurkan allaas keenay laakiin waxaan odhan karaa yaanay niman xunxun oo masaakiina oon kabihiina goynaynin ya oo daciifa idin sasaban sooma idin garan oo noloshiina baabi'in midka daciifka haddaad ka hor istaagtid inaad laftigadu waa naf leeyahay keeda daciifka maska shafato oo ma ku dhiirigelisid intay cidla taagnaan lahayd dee daciifku sooyada gubib cuni maayo kabihii iyo dharkii ubadkiibuu ka cunaya gurigeediibuu cunaya caanihiibuu ka cabaya war haadha naga daaya waxaa ku idhi khadarow anna in yar baan ka idhi kowdhe yaa wiil yahow gafgaad gaysataan kuu gadbaxayaaye ragga guula badiyee geyiga wada buuxa idilkiisa gaalka iyo islaamkaba anoon gelinin ee leexsan mudgunnimo ku caanoo gabdhaha caayo weligiisba midaan garanin waajibkii iyo xilkii guula u abuuray mid hooyadii googooyo oo gubaya jiidhkeeda ha gumoobin khadarow haween waa gob iyo geesi saacide ah soomaad garan waxa geesiga korisa geesiga ka dhigta waa hooyo
كدقنك أهل كدك تنك بستك أو هوي سمعت قرأ ورحنا يساعدوا اكتهين يسول كاسيو هوي أتكتم عدين يولا أو جرجودة هوي حاسكيني بعضو تمعدين مركا حكاس وحين أوركرنا خضروا لبضا لنعب هرت ضعيف وكتيره ولي برحقوا هاو بدنادين يا رجوا صوت رجوا حوي أنا مركا كله رجع مسؤوليتي الله يسوي صاري ما أها إنه أنتوا قربا كانوا قبل صوماليا ونلو قد قرنين ونوحبا قرنين أو كرتلكي كعسبي هاي يا وحول بكعسبي هي إنه يراهدنا أرضو قالوا أطاقو سنقل ما أدر بان خيلي halkaas xaaraanta guriga burburinay sabab lacag xaaraan la cunaya because gaal kaba lagu ma oran khiyaan soo ma waa sax mid baa jira horta anaga dumarku aniga halkaan ma soo fariisto dumarkeena ugu gafo barnaamijka ma baraarujin hooyo Soomaaliyeed waa jeclahay gabar Soomaaliyeed waa jeclahay dhamaan ummadda Soomaaliyeedna waan jeclahay gaar ahaan dumarka xushmad gaar iga mudiyi laakiin barnaamijkan waxaan focus ka saareynaa oo ugu doodeynaa inaynu iftiimino inaynu toos ku ifino meesha dhib ka jiro خضر أنا قاعد أستقالين عادي سكوا الحقيقة سؤال أنكو ويدي مركان أصل لابتو رجع مركي اللي يراهدو حتى رجع واحد بدنا خدنا ويني وشلون خلاص بدن أوشلنا وانقرنا يا أنا سحنا إلهي كرتينيا أنا تيمنا ويمان كره لكن واحد على الروا وقف إنه أوجي خلط رجعوا خلط كأنهم أوجنا هاي تاسوي سؤال شو رجع أنا هروح دقيقة تان أدي كهر دقيقة وحوي دمر كان على هاي سنجل مار سجت شوق أنتوا ننحو ذي إيمان لها أنا بوحى أقول لها كين نحن لكن اللي تا إذا كان دلاية شفتوا إنها جاتشتوا نواحد أنت شفان ولا جاتشتوا أو نلا جاي يسقوا تسيت شار يرو باو سروال يرو بريماجيو أو لوزر أنت ساق عطي شفت أو قارب BMW أصلا يا بو ولي بدري متكلا كراع وهذا حتى نك مثلا كراعنا يقولش إني وأنا هاي نوداي قبلها بدنا ناي لا إله إلا الله وحاب الدواء وإسكاكايا إسكدلو سماده وي دلو ما يدوم يكون الدلو ما يان صباح كان وحواي قبلكو حاجات adigoo eber ha ku soo qaaday qofka ka dhigta inaad abaal gudid ya oo hadaad fadlan noolaan kari weydid iskaga tagtid kadib aad doontid guursa hadaad doontid laakiin asaga halkaas wuxuu ku war anigu maalin baan waxaan la yaabay mid zero oo de kuwa darbiyada jiifsada sakraaminta ya baa wuxuu ku leeyahay aad baan ula fajacay wan sa intaan u eegan iskaga dhaqaaq wuxuu ku leeyahay magaalada single mother haysto wallahi lacna single mother aan bartay wallahi waxaanayto yaa la joog waa isagii baa hadda subxaan asagii baa digada ay dambas baa tiriyay de saala siro saala noqday saala ku leeyahay markaasuu gabar hooyo ah oo ilma haysato oo qurux badan oo sharaf leh oo mas'uuliyadii aabaha iyo hooyada wadadu qaaday oo de adyaabaysid maasha Allah ubadkeedu say u dhalaalayaan buucaayaya marka ragga Soomaaliyeed adiga su'aashan maanta ku weydiinay waxay tahay ragga Soomaaliyeed maxay 24/7 gabdhaha ay qabaan u caaya horta gabar ninkii caaya waa nin waxa weeye nin la mood weyn dhameystirna ma ahan ayaduna waxay ka imaanaysaa dee qalbi gubtay ama angegan bay ka imaanaysaa nin ragana gabar ma caayo nin ragana gabar mataqaana ma jaayfeeyo sidaan anigu aaminsanahay dad xun waa jiraan dad fiicanna waa jiraan marka kuwii fiicnaa saan hada hore kugu sheegayba waxay qariyeen xogaaga yar ee dulaysan baa waxay qariyeen intii wanaagsanayd ragga inteeda wanaagsan waxaan leenahay soo baxa guryaha ka soo baxa gabdhaha la shaqeeya jikada la gala dhaqankii aad wadanka ku sugayseen iyo wanaagii aad ku sugayseen iyo jeegada aan jirsan way dhamaatay ku haysta khadar oo halkaas shaqada ah raggii Soomaaliyeed haddaan u soo noqono raggii Soomaaliyeed waxay ku nool yihiin dul shisheeya oo qurba ah oo laga wada shaqaysto raggii dumarba isagoo halkan ku nool ayaa wuxuu wataa dhaqankii Soomaaliya nin looma baahnayn wuu soo shaqayn jiray eeda kula joogtay habareed baa kula joogtay hooyad helaysay waalid gurigii waa la buuxay meel ubad la ilaalinayo iyo meel ubad la leeyahay iskuul geey oo ka keena oo dugsi geey oo sidii arigii la raacayo horta dhulkana loogu yimi inuu la raaco oo ubadkii la wado taa waxaa iiga daran kuwiisii intuu diido inuu kaxeeyo oo 4 iyo 5 ka tago ayuu intuu 8 uga tago 8 aroortii kiyo indhaha saale وكالحسن وضع اسكولكي جينيا اسكولكي با waxaa dhigta
kuwii uu dhalay oo hooyadood wadaa la isugu imanaya miyaanay dhexuma ahayn isna wuxuu wadaa kuwa aanu dhalin malihi yani anigu kuwaada dhalin ha wadin laakiin at least iskuulka caruurta maamada single mother u yimid ilmaheedii uu kaxaynaya kuwiisina gabar kale keenaysa iskoolka lagu wada kulmaya iskuulka lagu wada kulmaya foolxumo ka dhameeyay ceeb fashil badan baa jooga marka waxa weeye magaalada horta waa lagu fashilmay ceebo badan baa ka dhacay Soomaaliyeedna waxaan leenahay raggeena wanaajista u dulqaata kuwina liita soo kiciya kulay idinka wax qabta hadda qurbaha dina joogo wadankii la joogo dadka waxa wadira wax wanaajiya waa idinka dadka dhaqaalaha dira waa idinka gabdhow waa sharfantihiin allah idin sharfo raggana waxaan leenahay warniyow aan ka soo baxno gudadka aan ka soo baxno intii wanaagsanayd midha raggana dumarku waxay yiraahdaan naaga haysta sababta midha meelay ku xidhayno midii haystana halala haysto wala labaha loo guuriyo hay la guurinayo de hagaajinayo dib baa ma diidano diinta aayad ay khadar oo de aayad baa dhigaysa in afar balse waxay ku leeyihiin ragga afar baa naloo baneeyay marka suu iska dhigayaa de isagii inuu kii dadka ugu sareeyay oo ka wato wiil halkan wadaadahoon halkan ka salaamaya maasha allah maxamed ibraahim awad aad buu isugu wataa dadkiisa laakiin intooda badan khadarow waxa weeye tadamba baa loo janjeeraa aanu soo noqdo su'aashii ahayd single motherka ogsoon tahay Soomaaliya markaynu joognay 90% inay single mother korisay wadankii may wadankii hooyo kaliya korisa 100% taas waa sax may taas sax waay laakiin qurbaha markaynu nimid guri kasta iyo guriga tatay hooyo iyo ilmiya caruura uun baa ku xareysan waa sida marka taas waxa laga yaabaa in adeer joogo ama awow joogo ama abti joogo laakiin tani waa gabadh iyo ilmaheedii taasaan la yaabana de wadankan waxa weeye cid kale kulama noolaan karto adeerna guri baa la siinaya markuu dalka yimaado awowhiina meel buu leeyahay oo waa qof nool oo meel gooniya la dajiyay ehel ku iman maayo laakiin ninkii reerka laga lahaa Soomaaliyaba kuwa waxaa jooga waliba banaanka hooyooyinka qodrad ku galaan oo isagii hurdo oo mafrish ku jiro Soomaal garan marka hooyo Soomaaliyaba waxaa soo koriye 80% aynu niraahnay hooyo kaliya ahay marka magaca single motherka waxaa loo caayay anigu waxaan u malaynaa nooc min al-qaraar sababta maskiinadii Soomaaliya joogtay kala kacsan oo madaxa lagaga fadhiyay oo isaga u warbiilka nasi oo hadduu ku dayriyana iyadu la balanbasho haddii uu wax yar u soo tuurana inta ku gumaysto ba ilaahay albaab u furay oo gaari BMW wadata balwaaqaysan gaalada ilaahay ka siiyay aan tuugtamayn marka in magacii single mother hooyada kaliya ahayd la bedelo la caayo oo ay laga dhigo دواتيا وحشي ويا هذه بعد ما سنتهين برنامج كان ما أهان وقيبت كوات إن شاء الله وأنا بدنا قيبها كذا به هجا يدو مركبة وحا قضبض أقوم يمسنا برنامج كده دينا وحوايا سنقل مدر كوحي ودنك أقوم بدن تهاي نرجو سم حيدو مركبة وعاون وايد أو قضب كوات قضب كان يروح يقول نقندونا محيدو مركو maxay rag u caawin laayeen haweenkooda guriga qolkeena koowaad maanta waxa maxay single mother ku ugu badan tahay sida khadar nooga qaatay wariye khadar aad baad mahadsan tahay sida barnaamijka nooga qayb qaatay iyo sida aad noo soo dhaweysay aniga khadar oo dawada ugu diraysa ragge raggu amba weyla dhasheeno waan dhalayo waana dhalay meel ma kala rag badan oo wanaagsan oo familiadooda haysta oo reerahooda haysta way jiraan inta xunna waxaan leenahay ilaahay ha soo hadiyo ilaahay keeneen samaad gar dumarkana aydaha laga daayo gabdhaha toxuno single mother la sheekaystay toxuno garooba iyo bal waxa adigu mid halka mid ay ka qaado ninkiini xuma walaal hadaa waxa laga sheegay hadaadan doqontaada adigu jiidan nin kale doqonta wataanta ku imaado ku dul mariya marka teena doqonta inta isku qaadana si aan qurbaha uga badbaadno inaan isjiidano مسجدنا ما حنا نجيد كرا كوي نقع دقمدينا لما تجيد كرا صاحي سوق هذا يو بيناد مشينا وكنت تكون قادد مويه ده عفنكم ده وقعنا إن شاء الله ويلو مركا هلا إلاليو عرورهينا وليبا تكلا عن قدر يوم محير رجو مركا قبل فران عرورتنا وفران وعرورتي مال إذا كم ترتو وين العرورتنا إذا كو كلا تجي قبل gabdho idinkuna ha u diidina ragga caruurtooda ha soo booqdeen u dira
ha soo arkeen ha kaa kaxeeyo weekendiga waan idin salaameynaa asxaabta meel walbaad adduunka ka joogtaan dee wixii yaraa khalada naga dhacayna iyo kuleyltiirana shaydaan bay ka ahaatay hanala cafiyaan leenahay oo aynu halkaan ku falanqayna doodeena dheereyd insha allah barnaamijyo kale oo dheeraana cid allaale ciddii rabtana way kasoo qaybgeli kartaa qof walbana waa ku marti qaadayna insha allah stuudiyaheena khaaska ah ee kala east london haddii aad noogu imaanayso insha allah waa kusoo dhaweynaynaa barwaaqa iyo fishbaan ka tagna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu